سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما سنتها ياسين يدمان SBA سلام كدب ياسين مركو ده هي وقد بضع الله ده مركو عنا ذلك مفرد سنة يرميها مركو ده مي ولقي وحنا قفطت واستكسم وحب شيء مركو first experience مركو إن شاء الله ورك بدل مشي كلي موضوع يرى اللي وقري مركا موضوع حكوسها بسنة هاي موضوع بدنا لقاها العالم كهذا أكتهين وحاول صومالي هام كله ترجمه كقيب قالك مالية إنجليش كانوا حنقولها واحد financial inclusion وحبضنا لقاها الهيئة ده كهذا بواق بدنا لقرأ وأنا بدنا بيجي اللي قد ياري وودن كانوا صومالي يعني ولي أدمودد هيركي الربي إنه جارسي سنين موضوع عس أيانس ده هاي ما أنت فرصة دان إنه أوفى عيستي. financial inclusion أما إن loss هذا هلتانك service كا بنجيدة وواحد نقول أنك سومالي هذا الناحية جود هندك سوماليات برسنتج هان مركل الرهاب نمبر كاستعماله بنجيدة أد ويريهن رجع دمر كوكل بديهن أو دمر كاولي بأد وسير رجعنا وحاجة ويروين أيوة ساستاي هذانا قبل الذي rural area meelaha laho goboladiina waa ka sii daranta oo wax jooga male bangiyada hadda waa aragtiin ama bakaaraha ama Trebiano ama Xamarweyne Muqdisho aruntii xoog la saaray meeshii anaka ka imaanay asalkeenana baadiyihi waaye bangiyadu waxa moodaa inay ku dhiiri la yihiin inay baadiyaha tagaan ay ku bixiyaan service-kii loogu tala galay sidoo kale ay target gareeyaan meelo badan oo muhiim ah ay ugu horeyso ganacsatada dumarka maadaama la dhahay ganacsiga dumarka oo ay ku yar yihiin bangiga isticmaalkiisa helitaanka waxyaalaha ugu muhiimsan oo kaabayaasha dhaqaalaha ah waa maalgelinta deemanka yararka ama deemanka waaweyn ama deemanka ganacsiga nooc kasta ay noqoto dumarkeena sidoo kale oo ku yar yihiin dadka baadiyaha joogo ha noqdaan kalluumaysato ha noqdaan xoololey ha noqdaan beeraley ama akoon ma lahan ama ma fahamsanana bangiyadiina inta tageen wax kama bilaabin oo waa ku yar yihiin marka waa fursad u baahan waxyaalo badan laga helayo mid kood waxa way dadkan soo guuritaankan jiro oo la soo guurayo waa ogtiin goboladii waa laga soo guuray wax badan ma ku tirmaa dhaqankii dadkii isbedeladii oo hadda anaka badankeena qof kasta 3 sano 4 sano ka hor 4 generation awgiisa kale ay xukuumadda baadiyaha marka meeshii laga imaaday asalkii inay burburto waa laga fiican yahay meeshii in la hormariyo adduunka in waxyaalaha oo ku hormaro waa fursad badan oo dhaqaalaha ka jirto oo la dareensaneen shalay markii bangiyada Muqdisho imaanayeen ay dhahayeen magaalada Muqdisho ayaa waxaan ka bixinaynaa deyn oo waxaan bixinaynaa credit facility waa 2009 isleeyahay bangiga ugu horeeyay oo private oo Muqdisho laga furo dadka way la yaabanaay magaaladan saan ma inta deyn la bixiyo lagu soo celinaa lacagtaada ma helaysid haddana waa lagu korto tartama waxa dhici karta in bishii la baxsho 10 milyan 20 milyan ka badan in Muqdisho lagu sii daayo dhici karto dhowr bangiyo ugu muhiimsan ay bixiyaan bangiyada yararkana microfinance wax bixiyaan marka cabsidii waagaas jirtay ayaa maanta waxay taagan tahay sidoo kale laga baqaayo goboladii la aado waxaan moodaa opportunity badan jirto marka meesha tagtid waxaan niyeysan kartaa CSR corporate social responsibility sadaqa niyeysan kartaa ajra niyeysan kartaa dhaqankaaga adoo wax u taraayo on top of that business kaaga xataa profitability gaagi oo hadda Muqdisho maalgelinta ama waxyaalo badan oo kale waxay noqon kartaa red zone noqon kartaa oo marka laga hadlayo competition-ka ama waxyaalahaas waxa loo kala qaadaa blue ocean iyo red ocean meeshan waxa ku badan malaay badan ku badan waaweyn big fish sa joogo laakiin meelahaas rural areas lama joogo marka magaalada la joogin oo kale for example Baraawo kala tagtay kalluumaystada yararka u bilowday kalluumaystada kar u soo kaceen magaalada inaa wax u tartay adigii faa'iido badan ka sameysay bangigaaga muxuu helay meel uu ka neefsado ayuu helay marka runtii mawduucaas mawduuc aad u muhiim waaye aniga just waxaan jeclahay inaan idin bilaabo kaliya inaad adinka fiirisiin runtii topic badan oo wax laga qori karo qofkii jecel article dadka qaarkood academics waaye PhD laga diyaari karo mawduuc aad u ballaaran waaye oo wax badan laga hadlo financial inclusion dadka in kama noqdaan runtii fursad aad u weyn aan haysanaa oo ah EFC plus kan iyo dahabka applicationada barnaamijyadan la haysto teknolojiyadan la haysto dhan fursad qaali waaye laakiin fursadda qaaliga haysana waxaan ugu faa'iideysan karnaa dhanka kale inaan dadkii fursad aan siino marka insha Allah intaas kaliya jeclaan lahay inaan ka hadlo aad iyo aad u mahadsantiin shukran jazakumullahu khayr assalamu alaykum